kulan ay iskugu yimaadeen wadayaasha gaadiidka BA-leyda iyo mas'uuliyiinta dawladda hoose ee degmada Qardho. Kulankan ayaa ahaa mid looga hadlayay sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen maamulka dawladda hoose iyo wadayaasha BA-leyda ka kala goosha gudaha magaalada Qardho. ugu horreyn kulanka ayaa waxa ka hadlay BA-leyda ka shaqeeya magaalada iyagoo cabasho ka muujiyay balse ballan qaaday in ay la shaqeyn doonaan maamulka dawladda hoose. aniga baan ka mid ahay taksiilayaasha iskugu yeeray maanta xafiiskani. horta madaxda aad bay u mahadsantahay maadaama ay dhibaatadeenu anaga ay aragtay. horta anagu dhibka aan qabno waxay tahay gaarigaas aniga waxaan u maleynayaa inaan wado 5 bilood. 5 bilood haddaan wax lagu yeeshay mooyee horta faa'iido kama hayo. waxaan u maleynayaa laakiin in lacag lagu yeeshay ama shadaal lagu yeesho ama nin makaanika waxay sameeyay lagu yeesho wallahi faa'iido ka heshay anu baalkaas hadda ismalihi. waxaasna waxa uu wala sadhaxyaaya dhowr jeerba barnaamij soo qabanay in anagu dhaxdeen wax sameysano. awoodda baawurka malaha baawurka nin baa leh oo guriga ku sugaya oo leeyahay wariyaas oo hadhoodii noo kala qeyb intee haysa shatada lagu sheegay hadda bar lacag badan baan laga qaado oo meel ay saarantahay aan ogeyn meel ma saarnin bosteejid iska badaa mid ka badan baan laga qaada meel loo wadi meel kale ma kala garaneen. xogayaha golaha deegaanka degmada Qardho Wacays Aydruus Guuro iyo xisaabiyaha dawladda hoose Yaasiin Cali Jaamac ayaa dardaaran iyo tala soo jeedin u sheegay BA-leyda inaad idinku leedihiin iskaashato iyo kala dambeyn oo iskaashadaas oo sameeyso nidaam ah soonaha qof walba ka shaqeynayo iyo shaqada maanta leeyahay iyo maanta lahayn in la kala hago si idinku ay mataqana xasiloonina iyo shaqada iyo mataqana hanaankiina uu noqdo mid mataqana waafi ah oo macna leh hadii aad isbarbayacdaan ado anaguna inaan wada shaqeyn yeelano oo aan u yeelano hab raac oo aan ku eegno kala dambeyntiina iyo xasiloonina iyo shaqada meesha ka socoto noo eegayna nabadgelyada eegayno wadooyinka eegayno horumarka eegayno dhinacyada ka eegayna waxa muhiim ah inaan helno baaburtan waa biilka magaalada iska dhex goosha laakiin in gaadiidka magaalada ka shaqeeya oo dhan hadduu yahay iska rogo booyadaha kuwaan biilkan tagaasida hal iskaashto oo guud inaad samaystaan bay ku fiican tahay oo hadda shirka intaan ka balaaran la isugu wada yimaado ka bacdina xogayaha dawladda hoose Cabdullaahi Maxamuud Maxamed ayaa ugu dambeyn sheegay in ay muhiim tahay in ay wada shaqeeyaan maamulka dawladda hoose iyo wadayaasha BA-leyda sidii isugu xirmi lahaayeen isku xirnaantu labadeena danba inuu ku jirta idinka ka tagaasile ahaan danta inuu ku jirta waxay tahay inaad heshaan meel wixii dhaca aad ula carartaan iyo inaad heshaan isbarbaryaaca aad ka baxdaan una diyaar garowdaan sanadka cusub inay bilaamayaan canshuuri iyo guddiga inaad samaysataan iskaashato guddiga iskaashatada marka aan leeyahay idinkaa dani inay ku jirtaan marka idinka laftigiin dhexdiina fii baa iska qaadaysaa fiigaas waxaad ku dabaraysaan hawlahiina maalmeed gaarigii jaba gaarigii xumaada hadda gawaari baa jirta idinkayna ka mid oo garaasho ku jirta laakiin haddii iskaashata jiri lahayd ma ay dhacdeen waxaa dhici lahaa inay iskaashatadu daboosho fiiga yarka ay maalintii ka qaado baaburleyda inay ku daboosho gaarigaas insha Allah mar kale shaqo gali lahaaba. Maxamuud Yuusuf Caamir Soomaali News Qardho.